السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalyaal waxaad ku soo dhawaataan channelka Mooguri Official. fadlan subscribe noo saar furana gambaleelka si ay kugu soo dhacaan muuqaalada aan soo gelino. waxaad ku soo dhawaataan qis aad iyo aad cajiib u ah, qisadaas oo ku saabsan wiil aabihiis geeriyooday. walaal waxaad u diyaar garowdaa inaad nagala socoto qisadan. goortii uu jiray Diyaa 8 sano waxaa dhintay aabihiis, waxaana la wareegay arrinkiisa abtigiis, wuxuuna ka faal qaaday asiga noloshiisa iyo waxbarashadiisa asiga. sanad kadib waxaa guursatay hooyadiisa. ninka guursaday hooyadiisa wuxuu shardi aga dhigay inuusan la noolaanin Diyaa iyaga. Diyaa wuxuu aaday guriga abtigiis, wuxuuna ku noolaa noloshan ugu wanaagsan, wuxuuna guda galay si uu u baran lahaa kitaabada diinta iyo xifdinta qur'aanka kariimka, wuxuuna ku barbaaray barbaarintan ugu wanaagsan, wuxuuna ahaa abtigiis mid aad u jecel asiga. goortii uu jaamacadda ka baxay wuxuu ku hamiyay asiga guur. wuxuu guursaday gabadhii abtigiis uu dhalay, taas oo ku waafaqday asiga, waxayna ku dooratay akhlaaqdiisa iyo jaceylka uu qabo aabaheeda. 2 sano kadib Diyaa xaaskiisa ma aysan dhalin wax ilmo ah, way baxeen asiga iyo xaaskiisa waxayna aadeen isbitaalka, wuxuuna ahaa mid ka murugsan natiijada uu soo saaray dhakhtarka. waqti kadib waxaa loo sheegay natiijadii, wuxuuna ogaaday dhibka ilmaha inuu ka jiro dhanka xaaskiisa, asigana uu yahay mid nabad qaba. uu qoslay Diyaa, wuxuuna ka xamdiyay Allah subxaanahu wa tacaala, wuxuuna ku dhahay dhakhtarkii, waxaan aadayaa xaaskayga si aan ugu sheego natiijada, waxaana kuu sheegayaa haddii ku weydiiso inaadan u sheegin arrinkan oo aad ku dhahdo dhibka wuxuu ka jiraa dhanka ninkaada. wuxuuna ugu tagay qaybta dumarka ay fadhiistaan, waxaana soo galay dhakhtarkii, wuxuuna u sheegay gabadhii inuu dhib ka jiro dhanka ninkeeda. Diyaana wuxuu u muujiyay xaaskiisa murugo, wuxuuna u sheegay inuu raalli ka yahay qadarta Alle. arrinkaas kadib markii ay ka soo wareegtay 4 sano, haddana ay samrayaan labadii, waxayna ku dhahday xaaskiisa Diyaa, arrinkan waxaan soo xamilayay 6 sano, waxaana doonayaa hadda inaad furtid, waxaana doonayaa inaan guursado oo aan arka carruurteyda. wuxuuna ku dhahay gabadhii, sanadkan la isug, wayna ku waafaqday asiga, wuxuuna ahaa asiga mid mar walba Alla xusa. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. waxay ahaayeen maalmaha kuwa isguraya ilaa ay gabadhii ay ka xanuunsatay xanuun aad u daran oo dhanka keliyaha ah. goortii ay isbitaalka joogeen, wuxuuna ku dhahay Diyaa xaaskiisa, aniga waxaan ahaa mid u safraya waddan kale si aan kugu raadiyo keli. waxaa soo wacday Diyaa xaaskiisa, waxayna u sheegtay in ay caafimaad qabto, waxayna u sheegtay in uu soo gaaro waqti ugu dhow iyo inuu ka soo tago shaqadii oo u baxay. Diyaa xaaskiisa wuxuu ka dalbay safar dibadda ah si uu ugu soo dhammaysto howlihiisa gaarka ah. way ka xanaaqday arrinkii xaaskiisa, waxayna dhahday, aniga waxaan ahaa mid arrin khatar ah ku jirto, waana safraysaa waana baxaysaa miyaa adiga. isbuuc kadib waxaa soo laabtay Diyaa asigoo ay ka muuqato dhibaato iyo daal, wuxuuna ahaa mid u bixiya xaaskiisa kelida iyadoo aan ogeyn. wuxuuna u sheegay gabadhii inuu asiga u baxayo shaqo, mana uusan u sheegin qof xataa abtigiis. 9 bilood kadib markii uu ku maqnaa shaqada Diyaa, xaaskiisa waxay ahayd mid uur qaada haddana dhasha, wayna ku farxeen arrinkii dhalashada cunuga. Diyaa wuxuu ahaa mid ku maqan safarka muddo dheer, wuxuuna aga tagay maktabadiisa buug xasuus qor oo ku qorneed arrinkii sirta ahaa, wuxuuna ahaa mid ku hilmaamay meesha. waxayna ogaatay gabadhii arrinkii ku saabsanaa iyadiisaygeeda, iyo waxay ogaatay inuu asiga keli ugu deeqay iyada. waxay ahayd mid oysa maalin walba goortii uu soo hor fadhiisto, waxay ahayd mid iyada ka xishoota, iyo iyada mana awoodin in ay fiiriso asiga sida u xumaasay darteeda. wuxuuna ahaa mid iyada fiiriya, wuxuuna ahaa mid dhoola caddeynaya asiga, wuxuuna u sheegay arrinkan inuu u sameeyey baarnimada abtigiisa iyo jaceylka oo iyada u qabo. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير